اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة وانكن ضمباء بشة مضنان قونية إلى هذا ولا ليه مضنان خاصة أي إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه asagoo bisha inteeda kala soo dadaali jiray ayaa haddana 10 kani markay soo galaan wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale 10ku markay soo galaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu isku dari jiray inuu xaasaskiisa ka fogaado leena itikaaf buu gali jiray nin itikaaf ku jirana reer iyo xaas iyo gogashoodu uma taalo habeenkiisana waa nooleyn jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu ku nooleyn jiray ilaahay taacadiisa quraan akhris salaad la tukado sadaqo iyo infaaq ilaahay dhikrigiisa istighfaarta habeen nool buu ahaan jiray habeenka nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi reerkiisana waa toosin jiray rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaasaska iyo ehelkiisana waa kicin jiray si ay jaaniska uga faa'iideystaan leena wax weeye waa wax aan la heli karin way waana fursad ay dhici karta inayna soo noqonin sidaas daraadeed ehelkaaga waxaad naftaada la jeceshahay baad iyagana la jeceshahay taacada marka in la kordhiyo oo dadaalka la siyaadiyo waa hadiyigii nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taacada la soo siyaadaysa waxa kamida bishan 10keeda dambe i'tikaafka oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 10ka dambe markay soo galaan waa i'tikaafi jiray i'tikaafka waxa laga wadaa inuu ruuxu ka dhaxbaxo ka go'o wixii adduunka mashquulinahay ganacsigii suuqyadii dadka ku dhex jirkoodii la sheekaysigooda reerihii iyo muxuu ahaay gogashii wax kastoo mashquulinahay inuu ka dhaxbaxo oo uu naftiisa masaajidka ku xabiso oo halka uu kula goonin noqdo ilaahay dhikrigiisa tabaaraka wa tacaala iyo allah muraaqabayntiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala taacaadkiisa qalbigiisu inuu gooni u noqdo oo jirkiisa iyo qalbigiisuba ay u go'aan allah taacadiisa tabaaraka wa tacaala muxuu i'tikaafayaa 10ka dambe wuxuu raadinayaa laylatul qadri buu nabigu baadi goobahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa ka sugan inuu ina yiri 10ka dambe ka raadiya 10ka dambe haddana habeenada tirada isdheer ka raadiya haddii xataa aad caajisto oo laga tambato 7da dambe yaa lagaaga tambadan buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxay ugu rajo badan tahay 21ka ama 23ka ama 25ka ama 27ka ama 29ka waa habeenada ugu rajo badan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa waxa ku sugan habeenka 27 si khaas ah ahadiith ugu soo aroortay 21kana ahadiith khaas ugu soo aroortay baa jirta warka marka la isku celceliyo culimadu waxay leeyihiin waan ra'yiga xooga badane habeen khaas oo sanad walba ay tahay ma jirtee si ahadiista macnaheeda kulli ay sax u wada noqdaan oo loo kulmiyo sanad ba meel bay gashaa oo sanad waxa dhici karta inay 21ka ku jirto sanadna 25ka ku jirto sanadna 27ka sanadna 23ka waa fadiilo warwareegayso marba meel buu alla galiyaa tabaaraka wa tacaala adiga marka hadaad 10ka dambe oo dhan habeenadeeda kulli dadaalka isku bixiso shaki wuxuusan ku jirin meelay martayba inaad heshay inaad haleeshay oo heshay ayaa soo baxaysa biidhnilaahi tabaaraka wa tacaala marka 10ka oo dhan dadaalkaaga ha kala goynin oo siyaadada iyo khayrka iyo wanaaga badso si aanan habeenimo ku dhaafin biidhnilaahi tabaaraka wa tacaala nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxyaalaha aad uu inoogu wax uu inoogu jideeyay waxa kamida 10kan dambe khaasatan laylatul qadri
habeenkaas la raadinayo baadidaa luntay baadidaa la wada raadinaya qaaliga ah jawharadaas aadka qaaliga u ah oo habeenka camalkaad la timaado kun bilood camal aad la timid uu ka khayr badan yahay habeenkaas waxyaalaha aadka loo baahan yahay in loo badsado waxaa ka mida habeenada la filayo ducada ka mida nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaskiisa caaisha ayaa waxay ku tiri rasuulka ilaahayow laylatul qadri haddaan haleelo ama aan is idhaahdo waa caawa maxaan idhaahdaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaad ku ducaysataa allaahumma innaka cafuwun tuxibbu alcafwa facfu cannii allah waxaad tahay midka cafinta iyo saamixaadda badan ee addoommadiisa saamaxa ee rabbiyow iska kay cafi ilaahu dembigayga dhaafoo ee cafi hadalkaa badi buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna aslanba waxaad ogaanaysaan baryada iyo ducadu allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka kuwa ugu jecel yahay wey waxaa loo baahan yahay marka in qiyaamka iyo istaagga iyo qur-aan akhriska la siyaadiyo tobankan dambe sida nebigaba ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih habeenkaa ruuxii istaaga laylatulqadriga ah oo ilaahay taacadiisa isu taaga oo salaad iyo khayr habeenkaa ku dhammaystaayey dembigiisii hore waa la dhaafi buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka inaan khayraadka siyaadsanno wixii aan horay u haynayna inaan kordhinno intan soo kordhaysana inaynu ka faa'iidaysanno si ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa aynu u helno bishanna aynu jaaniskan ilaahayna siiye tabaaraka wa tacaala khayraad fara badan si kaydka aakhare ay noogu gasho biidni illaahi tabaaraka wa tacaala oo dembi dhaaf iyo wanaag iyo taaco iyo khayr iyo wax mustaqbalkaaga ku anfaca maalinta qiyaamada اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين